Intii saddexaad ayaan telefoonka ka qabtay mid ahaan iyadoo qaylinaysa buuqaysa masayrkii caadiga qofka lagu yaqaanayna ay masayrayso qof xumbaatay saanaatay waraaqdeydii baan rabaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنتم ونكسر مركز صاحب يا الملك استوى شوكتان أنا جوا مصطفى هالكن هو مصطفى شوك سولو هذا قيبتي وجود دم بيسي إيش كذا إني سيدي بيلا بدأ يدحس كوا ده وقاعدين إن أنا جو أي وضع نحنا ما وضع أبو واحد ينوم بريسي مركي أي حوالي ده يسوق سوق كلام أي ساركان مرنير كديب قبلي ويصور عين أنا جو بركة شوكا مقالة نيروبي الدلك كينيا يا تلفون كي يصور عي ميدهان بيصور عادي مركان كقبتشيل وسويتشي مفيعنتها عفمات ورئيسي يو عبار كديب waxay weydiisay Mustafa ma jirta intii aynu kala maqlin cid xiriir la yeelatay ama aad shukaasatay gadaashay waxaan ku maya ma jirto okay bay ku dhahday markay telefoonkii dhigtay isla sikinis hal sikin kadib laata sikin kadib telefoonkii kale ay soo galay عبار سلام kadib hello baby fiicanta caafimaad hooni waa fiicanahay isla su'aashiisa alla midabay weydiisay oo Mustafa ma jirta cid aad shukaasatay maya baan ugu jawaabay markii inta ayna dhex martay ay hal mar labadiiba khadkayga la wada hadleen oo inay wada joogaan ayay idreesiyeen oo isbarteen oo markaa ay ila wada hadlayaan oo ay wada fadhiyaan runtii waxay igu noqotay sheeko aad u naxdin badan u aankaag badan u qaadan waaya maxaa dhacay telefoonkii baan damiyay saddex maalmood buu telefoonkaygu dansanaa uma jawaabin lama hadal joog uma odhanin intaasi markii ay dhacdaxaad ayaan telefoonka ka qabtay mid ahaan iyadoo qaylinaysa buuqaysa masayrkii caadiga qofka lagu yaqaanayna ay masayrayso qof xumbaatay saanaatay waraaqdeydii baan rabaa kama waalin waraaqdaad rabtaan dhib male waraaqihiina waa helaysaan laakiin labadiinuba waa inaad igu timaadaan halka aan joogo idinkoo wada socda mid ahaanba waxay lahayd 4 maalmood kadib bay waxay lahayd fasaxi shaqada oo 3 wiiga 12 maalmood tii kale waxaan ku adiga laftaadu xanuun qoro si aad waqti wada heshaan oo aad igu wada timaadaan tigidadiina ana qaba labadii tigid baan u diray midii kalena karaankii bay qoratay way soo baxeen Nairobi igu yimaadeen gurigaygii maan keenin labadiiba hodeel baan dejiyay hodeelkoodii markaa iyagu waa saaxiib ana heshiis marka leeyahay oo laygu kacsan yahay laakiin iyagu sidooda waa heshiis saddex maalmood markii hodeelka deganaayeen aanan u kala furin joog iyo jaaqtoona wadan waxa dhacday maalintii saddexaad baan u tagay labadiiba waa soo qaaday gaari dusha ka banaan oo awri baan watay waxaan ku soo bilaabay inaan geeyo internet shop electro shop kaygii dukaankii telefoonada gadayay way arkeen waan ka soo kaxeeyay meeshii shiisha baarkaan keenay way arkeen waan ka kaxeeyay studiogii lagu duubayay aflaamta filma aroosyada iyo meherada iyo dhalashooyinka iyo programada noocaas lagu qabanayay baan geeyay waan ka soo kaxeeyay waxaan geeyay meeshii booyadaha shidaalka ee labada booyadeed ay joogeen waan ka soo kaxeeyay xarunta bangiga daabshiil baan keenay waxaan markaa ka dalbaday in la soo saaro kaydka lacagta ii taala markaa bangiga waa la soo daabacay cadadkii ay ahayd oo kaliya lacagta soo baxitaan ma lacagta la soo baxay laakiin cadadka lacagta ii taala cadeyntii waraaqaha ayaa soo saaray intaas oo dhan baan soo saaray meel baan u tagnay waanu qadaynay qadadii markii aan cunay dhamaysanay baan hor dhigay waxaan ku yiri labadiinu waxaad iga maqnaydeen muddadii ugu dambeysay 8 bilood sanad iyo bil baad iga maqnaydeen labadiinuba oo aynan is arag maadaama sanad iyo bil iga maqnaydeen intaana Nairobi aan joogay hantida noocaasana aan gacanta ku hayo waan guursan karayay habla yaroo la isiinayo laygu sharfayo laygu ixtiraamayo baan guursan karayay ma aan samaynin ganacsi iyo hawl baan iskaga jiray lacagtan aad ii soo dirtaan guud ahaan $600 meheradaha shishada waxay soo saartaa saddexdii habeen bay soo saartaa taasoo faa'iido ah internet show electro show inta soo saara boyda shidaalku waxaasay soo saara dukaanka kale meesha studiogu lacagta noocaas soo saara baahi maanta iyo haysa bilad Mareykan iga soo dirtaan ma jirto baahi maanta inan kale oo saddexaad aan idinka daba keeno aan idinka daba guursadana ma jirto waan dhaqanahay haddii labadiinu way iga tagtaan oo maanta tiraahdaan Mustafa waraaqaheegi baanu rabnaa way fududahay waynu kala tagi karnaa ma idin cadibayo idin ma dhibayo laakiin waxaan idin sheegayaa sida shalay idin rabay labadiina ayaan idin rabaa
waan idin jecelahay mana rabo in aan idin xumeeyo waayo nolol adag iyo duruufo adag baynu isla soo marnay kalgacayl iyo jacayl iyo xub iyo cishqi wada jiraynu soo matalay haddii aad leedin waan kaa tagaynaa anu berri ka maalin badee ma joogayo oo reer waan heli haddii ilaahay ii qoro laakiin waxaan jecelahay inaad ila joogtaan nolosha aad si aad hore igula midoodaan go'aankuna xaggiinu ka jiraa si hadda hay jawaabina ka soo tashta 2 maalmood kadib isu keena dee wixii aad ku soo tacabtay iyo noloshii aad eberkayga la soo bilowdeen ee eberka ahayd labadiinu ila soo bilowdeen hadda maanta ka tagtaan mid saddexaad baa noloshayda ku soo biiraysa oo cusub oo hantidan iyo dee anigaba nagu soo biiri doonta go'aanku xaggiinu jira 2 maalmood kadib markii ay maqnaadeen way igu soo laabtay waxay yiraahdeen noo ballan qaad inaanad mid saddexaad naga daba keenaynin labadeeduna markii baan ku noqonnaa reerahaagaan ahaanaynaa hablo runtii aad u caqli badan bay ahaayeen sidii baan ugu ballan qaaday halkiiba iminka markaa sheekadaasi ku dhamaatay reere waxaanay dhaqan degan alxamdulillaah intaasaan kusoo gabagabaynaya sheekadii sidee ayay labadayda xaas ku ogaadeen in aan labadaba anigu qabo waad mahadsantihiin kulanti dambe sidaas iyo